kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa kamid ah gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir oo la leeyahay iyo xogo ka soo baxaya afduub la sheegay in loo geystay gudoomiyaha ayaan halkan idin kula wadaagi doona waxaa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan afayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo ka warbixiyay xanuunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo maalin loo asteeyay in dib loo baaro madaxweynaha oo baaritaan heer caalami lagu sameeyo ayaan sidoo kale warkeena ku eegi doona Allahu naxariistay afar askari ayaa ku geeriyooday qarax saaka la eegtay gaari ay saarnaayeen askar iyo wariyayaal kana mid ahaa ama la socdayba kolonyo baabuur ah uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan howlgalo military ayay maalmihii ugu dambeysayba gudoomiyaha iyo kolonyada iyo askar aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale maleeshiyaadka gobolka Hiiraan ayaa waxay wadeen howlgallo ay ku baacsanayaan ururka argagixisada Al-Shabaab deegaanada hoos yimaada degmada matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa arintaasi ka dhacday dagaalo waaweyn ayaana saaka socda oo u dhaxeeya ururka argagixisada Shabaab iyo sidoo kale ciidamada oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa sidoo kale idin soo gudbin doona khasaare aad u badan oo hadda la soo sheegayo saacadii ugu dambeeyay in halkaasi ay ka dhacday iyo dagaaladii ugu dambeeyay guulaha la kala gaaray ayaan halkan idin kula wadaagi doona madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi oo xilka qaadis u sameeyay xubno kamid ah golihiisa wasiirada iyo waxa ka dambeysay xilka qaadistaasi iyadoo la ogsoon yahay in maalmihii ugu dambeysay khilaaf siyaasadeed uu ka taagnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa sidoo kale idin soo gudbin doona hadallo kulul oo ay isku adeegsanayeen maalmihii ugu dambeeyay gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda Muuse Biixi qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu ku soo gaaro muuqaalka like saar oo aragtidaada noogu reeb qaybta commentiga oo nagu soo bir oo naga mid noqo mahadsanidin aan ku bilownay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo maalmihii ugu dambeysay la leeyahay isla markaana xoga ay ka soo baxayaan in afduub loo geystay oo meel uu jaan iyo cirib dhanay la leeyahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo la ogsoon yahay inuu ahaa shakhsiyaadkii ugu cadcada xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana kamid ah guddiga dib u dhiska ama guddiga guri u dhiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la leeyahay iyadoo xoga rasmi ah ay sheegayaan in gudoomiyaha la afduubtay saacadihii la soo isla markaana la leeyahay cidda afduubatay xogo kale ayaa ka soo baxaya gudoomiyaha inuu xanuunsan yahay hase ahaatee ila xogogaal ayaa waxay noo xaqiijiyeen in gudoomiyaha la afduubay isla markaana la ogolayn in warkiisa xukuumaddu ay faafiso cali oo ahaa shakhsi aad u karti badan isla markaana ahaa xubnihii ugu cadcada shantii sane ee la soo dhaafay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ahaa shakhsiyaadkii ka dambeeyay amniga hadda lagu naaloonayo ee magaalada Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir ayaa la leeyahay iyadoo la sheegayo in shakhsi in la afduubtay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir ila xogogaal ayaa waxay sheegayaan gudoomiyaha in la afduubtay maalmihii ugu dambeysayna loo hanjabayay oo ay hanjabaysay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana baacsi lagu waday oo ay ka dambeeyaan Mahad Salaad iyo xubno lamida isla markaana ahaa shakhsiyaadkii xilligii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka caban jireen oo ay kaga caban jireen inuu la saftay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in afduub loo geystay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan wali ka hadin arrintaasi hase ahaatee baraha bulshada ayay qabsatay in gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo Cali in la afduubay sidoo kale ta soo baxaysay maalmihii ugu dambeysay in digniino la siinayay guddiga dhisahaya ama qabanqaabada guri u dhiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu uu kamid yahay isla markaana lagu tilmaamo in Cali uu ahaa shakhsigii ka dambeeyay ee abaabulay fikradani keenay guriga loogu dhisayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmihii ugu dambeysay digniino kala duwan ayaa ka soo baxayay taliska ama taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Mahad Salaad isla markaana lagu waday baacsi xubnihii hore ee la soo shaqeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sidoo kale ta soo baxaysay maalmihii ugu dambeysay dilal loo geysanayo xubnaha cadcad isla markaana taageersan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo dad aad u tiro badan la dilay tan iyo intii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka qabtay maalmihii ugu dambeysayba waxaa iska soo daba dhacaysay hanjabaado iyo beegsi lagu hayo
taageerayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiintii la soo shaqaysay madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sidoo kale digniino kala duwan loo dirahayay dadkii hore uu la soo shaqeeyay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo inta badanba ay wadanka iskaga bixeen hase ahaatee xubnaha hadda xilka haya oo ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa loo malaynayaa inay afaduubeen oo ay ka dambeeyeen Mahad Salaad oo maalmihii ugu dambeysayba dacwadiisu ay iska soo dabadhacaysay waxaa sidoo kale Mahad Salaad iyadana maalmihii ugu dambeysayba iska soo dabadhacaysay eedeymo loo soo inuu ka mid yahay kooxaha argagixisada shabaab iyo sidoo kale inuu dil ku lug lahaa dilkii Ikraan Taxliil oo muddo loo haystay Fahad Yaasiin isla markaana sirac culus ay soo baxeen intii xilka loo dhiibay Mahad Salaad waxa sidoo kale Mahad Salaad ku eedeeyay mas'uuliyiin sarsare iyo sidoo kale culimo u diin kuna eedeeyay in aysan garanaynin goortii uu ka baxay ururka argagixisada shabaab ayna ku ogaayeen Mahad Salaad inuu ka mid ahaa ururka argagixisada shabaab una si dhow ula shaqeeyo mas'uuliyiinta sarsare ee ururkaasi Mahad Salaad ayaa maalmihii ugu dambeysayba cabashooyin weyn laga soo gudbinayay iyadoo xildhibaano culimo u diin iyo cuqaal waxgarad iyo aqoon-yahanba ay sheegeen inaysan garanaynin goorta uu ka baxay ururka al-shabaab isla markaana aysan magaalada Muqdisho ku noolaan karin inta uu xilka hayo isagoo la ogsoon yahay in Mahad Salaad uu hadda hayo xilka taliyaha sirdoonka qaranka ee NISA isla markaana cabsi weyn ay soo wajahday mas'uuliyiintii hore ee la soo shaqaysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xildhibaano cabsi weyn ay muujin cabashooyin ay u gudbiyeen dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayna sheegeen inaysan wax wada shaqeyna ama aysan magaalada Muqdisho aysan joogi karin cabsi ay ka qabaan Mahad Salaad ayaa lagu eedeeyay marar kala duwan inuu isagu la shaqeynayo ururka shabaab isla markaana uu si dhow ula shaqeeyo mas'uuliyiinta ugu sarsaraysa ee ururkaasi oo uu ka mid yahay Mahad Karatay isla markaana ay isku qoys yihiin shalay ayaa la sheegay iyadana sidoo kale inay soo baxayo xogo muhiim ah oo ku aadan inuu sumeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu wada shaqeyn la yahay sirdoonka Yuhuuda mudana uu la shaqeynayay sirdoonkaasi cabashooyinka kala duwan ee eedeymaha iska soo dabadhacaya ee ku aadan mas'uulkan hadda loo magacaabay taliyaha sirdoonka qaranka ee NISA ayaa soo badanaysa eedaha loo soo jeediyay isla markaana ay soo bandhigeen culimo diin xildhibaano iyo sidoo kale aqoon-yahan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna loo gudbiyay dacwadaasi loona sheegay in shakhsigaasi uu ka qaado xilka isla markaana uu amniga khalkhal u geysan doono afayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka warbixiyay xanuunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna sheegay madaxweynaha in baaritaan heer caalami ah lagu sameyn doono maalinta bariya isagoo sheegay madaxweynaha in baaritaankaasi lagu ogaan doono xanuunadiisa iyo waxa ka soo cusboonaaday waxa maalmihii ugu dambeysay ay soo tareysay xogaha la xiriira xanuunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo warbaahinta qaarkeedna ay u turjumatay madaxweynuhu inuu ku jiro xaalad degdeg ah isla markaana uusan awoodin hawlihiisa shaqo waxa la ogsoonaa munaasabada 26 Juun inuu madaxweynuhu ka soo qayb galin oo soo wakiishay gudoomiyaha golaha shacabka isla markaana gudoomiyaha golaha shacabka uu sheegay madaxweynuhu inuu xanuunsan yahay loona duceeyo una ka codsaday mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay halkaasi inay u duceeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaahay inuu ka caafiyo xanuunka maalmihii ugu dambeysayba waxa ay soo tareeyay xogo kala duwan iyadoo la sheegayo madaxweynaha in loo qaaday dalka Turkiga hase haatee ilaa wareedi ayaa sheegaya madaxweynuhu wali inuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho xanuunkiisana ay tahay mid siriyaasa oo hadda loo qaadi doono dalka dibadiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safarkiisa koobaad ku bixiyay dalka Imaaraadka Carabta ayaa la soo sheegayaa in madaxweynaha la sumeeyay iyadoo ila wareedyo kalena ay sheegayaan in xanuunka COVID-19 uu ku dhacay hase ahaatee dadku agdhow ay sheegayaan in sumeyntaasi ay dhab tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xanuunkiisa ayaa hadda loo badinayaa in la sumeeyay isla markaana ay arintaasi ka dambeeyeen sirdoonka dalka Yuhuuda arintaasina uu ka dambeeyay Mahad Salaad oo lagu eedeeyay inuu la shaqeeyo sirdoonka Yuhuuda isla markaana arintaasi ay uga leeyihiin sidii ay ugu dhaafin lahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud saaxada sirdoonka Yuhuuda ayaa la sheegay in arintaasi ka dambeeyeen isla markaana xanuunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid halisa hase ahaatee afayeenka madaxtooyada ayaa xaqiijiyay in baaritaanka heerka caalami ah ee lagu sameyn doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu noqon doono midkii lagu kala ogaan lahaa xanuunkiisa inuu yahay COVID-19 iyo inuu yahay mid sunta la xiriira la sheegahayo dhinaca kalena gobolka Hiiraan maalmihii ugu dambeysayba waxaa ka socday dagaal xoogan oo u dhaxeeya ururka shabaab iyo sidoo kale ciidamada dawladda oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan saaka aroornimadii qarax lala eegtay gaari ay saarnaayeen askar iyo sidoo kale wariyayaal ayaa la sheegay inay ku dhinteen 4 askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kaleeto isla markaana dagaalo halkaasi ay ka qaraxeen gaariga Allah u naxariistay ay ku jireen askarta ayaa la sheegay in dhaawac badan uu soo gaaray shakhsiyaad ka mid ah wariyaasha gobolka Hiiraan hase ahaatee
xaaladoodu hadda ay roon tahay. Dagaal saaka barqinimadii dhexmaray ciidamada uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inuu khasaaro badan u geystay, hase ahaatee guushu ay raacday ciidamada uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Gobolka Hiiraan ayaa wada dhaqdhaqaaq ay doonayaan inay ku xaqiijiyaan amniga dhammaanba gobolka Hiiraan, isla markaana ay ka saaraan kooxaha argagixisada ee ku habsaday, waxayna wacad ku mareen gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee goobtaasi ku sugan inay gabi ahaanba gacanta ay ku soo dhigi doonaan argagixisada oo ay ka sifayn doonaan dhammaanba gobolka Hiiraan. Dhaqdhaqaaq xoogan oo ciidan ayaa ka socday maalmihii ugu dambeysay agagaarka magaalada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, isla markaana ay ciidamadu wadeen dhaqdhaqaaqyo ay ku baacsanayaan kooxaha argagixisada ee goobahaasi ku sugan. Ayaan u hadalay gudoomiyaha iyo howlgalka ciidan ee ay ka wadaan gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaadheen, khasaare yarna uu soo gaarsiisay, hase ahaatee kooxaha ay la dagaalamayeen ee ururka Shabaab inay u geysteen jab aad u weyn, isla markaana uu sheegay in ay aad u tiro badan ay gacanta ku soo dhigeen. Dagaalada ayaa ka socda gobolka Hiiraan si xooganna u socda, iyadoo ciidamadu ay halkaasi ka wadaan howlgal xoogan oo ay ku xaqiijinayaan amniga iyo kala dambeynta gobolka Hiiraan. ugu dambeyntii madaxweynaha Somaliland ayaa xilka qaadis ku sameeyay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, iyadoo la ogsoon yahay inuu khilaaf xoogan oo siyaasadeed uu ka taagnaa maalmihii ugu dambeysayba Somaliland iyo dhammaanba magaalada Hargeysa. Waxaa maalmihii ugu dambeysayba ismari waa siyaasadeed uu ka taagnaa xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi, iyadoo xisbiyada mucaaradku ay ku dhaliileen madaxweyne Muuse Biixi inaysan ka goonayn qabashada doorasho loo dhan yahay oo dhinacyadu ay ku qanacsan yihiin. Waxaa sidoo kale mas'uuliyiintu maalmihii ugu dambeysay hawada isku marinayeen hadalla kulkulul, waxayna xisbiyada mucaaradka madaxweyne Muuse Biixi ay ku eedeeyeen inay doorashada uu doonayo inuu dheeraysto, isla markaana uu abaabulahayo xisbiyo kaleeto oo uu doonayo inuu ku jabiyo xisbiyadan Ucud iyo Wadani oo hadda ah xisbiyada ugu cadcad dhanka doorashooyinka ama ugu taageerada badan. xisbiyada mucaaradka ayaa sheegeen wada hadalla ay isku dayeen in lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan Somaliland inay guuldareysteen, isla markaana ay ku sheegeen madaxweyne Muuse Biixi inaysan ka goonayn qabasho doorasho loo dhan yahay oo dhinacyadu ay ku qanacsan yihiin. Waxay sidoo kale madaxweynaha ay ku eedeeyeen inuu abaabulayo xisbiyo uu doonayo inuu ku jabiyo labada xisbi, waa xisbiga Wadani iyo xisbiga Ucud ee ugu cadcad dhinaca doorashooyinka uguna taageero badan, uuna doonayo in uu ka soo baxo dhinacaasi xisbiyo kaleeto oo xisbiyadaasi ama awooddoodaba uu ku jabiyo. waxay sidoo kale xisbiyadani ku eedeeyeen madaxweyne Muuse Biixi inuu faragelin ku sameeyay komishinka doorashooyinka, isla markaana 4 xubnood oo ugu sarsareysay ay xilka iskaga tageen markii faragelin uu ku sameeyay madaxweyne Muuse Biixi. wuxuu sidoo kale maanta xilka ka qaaday dhowr wasiir oo ka tirsanaa golihiisa wasiirada, kuwaasi oo uu ku eedeeyay in ay la safteen xisbiyada mucaaradka ama uu ku arkay inay la safteen dhinaca xisbiyada mucaaradka. maalmihii ugu dambeysayba waxaa sidoo kale soo tirahayay dhaleecayn iyo sidoo kale dhaliilo waaweyn oo loo soo jeedinayo madaxweyne Muuse Biixi oo ay ka mid tahay xariga uu kula kacay wariyaasha madaxa bannaan iyo dadka ka aragti duwan ee ka soo horjeeda, iyadoo la ogsoon yahay wariyaal aad u tiro badan in ay ku xidhan yihiin xabsiyada magaalada Hargeysa. waxaa sidoo kale dhaliilo waaweyn loogu soo jeedinayay xildhibaano xabsiga loo taxaabay iyo sidoo kale xildhibaan Barkhad Batuun oo ah xildhibaanada ugu afka dheer ama ugu cadcad geyiga Somaliland oo isagana toogasho loo geystay ama maalin ay dadka si nabdoon u mudaharaadayeen. waxaa sidoo kale madaxweynaha lagu eedeeyay shakhsiyaad dhowr ah oo dhibaato ba'an loogu geystay geyiga Somaliland oo ay ka mid tahay nin maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada qabsaday oo xiniyaha laga bixiyay oo ciidamadu ay xiniyaha ka bixiyeen, taasi oo laga codsaday madaxweyne Muuse Biixi in uu hor keeno cadaaladda shakhsiyaadka dhibaatada geystay ee ka mid ah ciidamadiisa. sidoo kale maalmihii ugu dambeysayba waxaa soo shaxbaxayay hanjabaado iyo sidoo kale is-abaabul ay mucaaradka samaynayaan, taasi oo ay sheegeen madaxweyne Muuse Biixi haddii uu qaban waayo doorasho loo dhan yahay oo xilligeedii ku dhacda in ay xoog kaga bixin doonaan madaxtooyada Somaliland. madaxweyne Muuse Biixi ayaa isagana dhinaciisa aan yaraysanin oo abaabul wada, iyadoo tabashooyin badan laga qabo, hase ahaatee uu ciidamada amar ku bixiyay in aan la mudaharaadi karin oo wax mudaharaadayaal ama dibadbaxyaal aysan banaanka iskugu soo bixi karin, taasi oo sidoo kale mucaaradku ay u cuskadeen inay tahay arrin dastuuriya la cubrinayana shacabka iyo rabitaankooda. daawadayaal war waxaan daliyo dibadba idinka waa naga intaa warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.